one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. ilmo keliya, macallin keliya, buug keliya, iyo qalin keliya ayaa bedeli kara dunida. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boardle. Mawduuceena maantana waxaynu kaga hadli doonaa Malala Yousafzai. Malala Yousafzai waa gabadh yar oo Bakistaaniyad ah. Waxa ay dhalatay sanadkii 1997 waxaana ay noqotay qofkii ugu da'da yara ee ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. Malala waxa ay abaalmarintan ku heshay iyada oo u dooday xuquuqda bini'aadamka, gaar ahaan waxbarashada haweenka. gobolka ay ku nooshahay ay dhaqdhaqaaq fara badan oo ay ugu doodayso xuquuqda waxbarashada dumarka ka samaysay kadib markii Daalibaanku ay xidheen qaar ka mid ah dugsiyada gobolka. kadib markii ay muddo xidhnaayeen dugsiyada gobolkaasi, haddana Daalibaanku waxa ay fureen dugsiyadii wiilasha, balse kuwii habluhu waa ay xidhnaayeen ilaa February 2009. Malala waxa ay in badan u dooday oo intii itaalkeeda isku dayday in dib loo soo celiyo dugsiyadii, isla markaana waxbarasho ay habluhu helaan. si kasta oo ay tahay, haddana tirada dadka waxbaranaya ee gobolku aad ba ay u xadidnayd. Malala iyadoo sawiraysa xaaladda markaa taagneed, waxa ay mar ku qortay boggeeda u gaarka ah hadalkan: 70 qof oo keli ah ayaa aada dugsiyada, iyadoo 700 oo qof ay diiwaan gashan yihiin. waraysiyo badan oo lala yeeshay iyo warbixino dhowr ah oo laga diyaariyay kadib, Malala waxa ay noqotay qof warbaahinta aad looga hadalhayo. intaas kadib, Malala waxa ay ku guuleystay dhowr abaalmarin. October 2011, Malala waxa ay ku guuleysatay International Children's Peace Prize. Malala markii ay noqotay qof meelo badan laga aqoonsan yahay, waxaa soo wajahday khataro badan nolosheeda. bishii October 2012, nin wejiga maro ku duubtay oo Daalibaan ah ayaa madaxa ka toogtay Malala, halkaas oo dhaawac xooggan ka soo gaadhay madaxa, gaar ahaan maskaxda. Malala waxaa loo qaaday dhakhtar militarigu leeyahay oo ku yaala Peshawar, halkaasi oo qalliin xabadda lagaga saarayo loogu sameeyay. isku daygan dil ee lagu sameeyay Malala waxa uu ka dhigay Malala qof magaceeda dunida laga yaqaano. isku daygan waxa uu sidoo kale ku soo jeediyay Malala isha caalamka oo dhan. sanadkii 2013, Malala waxa ay khudbad ka jeedisay qaramada midoobay iyadoo da'deedu ay tahay 16 sano. isla sanadka bishii October, Malala waxa ay ifka ku soo saartay buug ay nolosheeda kaga sheekeynayso oo ay u bixisay I Am Malala, the girl who stood up for education and was shot by the Taliban. waxaan ahay Malala, gabadhii u istaagtay waxbarashada ee ay Talibaanku toogteen. Taliban may joojin cadaadinta ay ku hayaan Malala, Malalana may joojin u doodidda iyo taageeridda awoodda waxbarashada. bishii October 10 sanadkii 2013, baarlamaanka Yurub waxa ay Malala guddoonsiiyeen abaalmarinta xorriyadda fikirka, Prize for Freedom of Thought. October 2014, Malala waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize, xilligaas oo da'deedu ahay 17. waxa ayna noqotay qofkii ugu da'da yaraa ee ku guuleystay abaalmarinta noocan ah. ra'iisul wasaaraha Pakistan ee waqtigaas Nawaz Sharif ayaa si weyn ugu hambalyeeyay guusha ay gaadhay Malala. waxa uuna ku tilmaamay Malala inay tahay halyeeyad, isla markaana ay sharaftii waddankeeda kor u qaaday. sidoo kale, xogayihii guud ee qaramada midoobay waqtiga Ban Ki-moon ayaa tibaaxay in geesinimadii iyo adkaanteedii dugsi aadistu uu ka dhigay macallimad caalamka laga yaqaano. fanaanada caanka ah ee reer Mareykan Madonna ayaa iyaduna heesteeda Human Nature u hibaysay Malala. sidoo kale, jilaaga Hollywood Angelina Jolie ayaa maqaal ka qortay Malala, isla markaana ururkeeda ugu deeqday lacag dhan $200,000. filim soo saaraha reer Hindiya Amjad Khan ayaa isaguna ballan qaaday inuu filin ka sameyn doono qisada Malala. October
2013 waxay Malaala tagtay guriga cad ee Mareykanka looga taliyo halkaas oo ay kula kulantay madaxweyne Obama, xaaskiisa Michelle iyo inantooda Malia. Isku soo wada duub oo Malaala waxay noqotay qof yar oo dadaal shakhsi ah samaysay kadibna mutaysatay abaalmarino aad u fara badan. intaas ayaynu ku soo koobi doonaa mawduuceena maanta aynu kaga sheekeynay Malaala.